madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha golaha guurtida gudoomiyaha maxkamadda sare mudanayaasha golaha wakiilada ee halkan fadhiya xubnaha golaha xukuumadda saraakiisha ciidanka iyo marti sharafta kala duwan ee halka fadhida assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib ilaahay baynu u mahadnaqaynaa marka koowaad mahadda ilaahay kadibna waxaynu ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu maanta halkan hadhiima sharafeed ugu sameeyey golaha wakiilada oo isu dhan run ahaantii waa habdhaqan soo jireen ah in golayaasha la doortay madaxweynuhu uu ku casuumo halkan marba kii jooga haddii ciduun tabayso inay dib u dhacday hawsha iyo wakhtigaa lahaaye nac iyo hawl kale midna ma jiraan ee hawshaa lahayd waxaanan filayaa maantay noqotay waynu uga mahadnaqaynaa madaxweynaha run ahaantii hadal badan maanta halkan ma yaallo golaha wakiiladu waa golihii shacabku doortay waxayna ka wakiil ka yihiin shacabkii soo doortay waxaana dhammaan hay-adaha dowladda ee halkan fadhiya isku xidha oo oday u ah madaxweynaha oo ah odaygii guud ee qaranka sida uu xil uga saaran yahay xukuumadda buu xil uga saaran yahay golaha baarlamaanka oo isku dhan sidaasi la eg buu golaha garsoorkana xil uga saaran yahay waana odaygii guud ee isku xidhayay intaasoo dhan mid walbana hawsha uu hayo cidda ku kor joogtaynaysa ee ku ilaalinaysa waa isaga haddii laga yaabo waad ogtihiinoo dalku axsaab buu ka kooban yahay golayaashu khaasatan golaha wakiiladu golayaal buu ka soo baxay aragtiyaha qaarkood iyo siyaasadda axsaabta waa la isku khilaafi karaa laakiin danta guud ee qaranku waa mid wayna ka dhaxaysaa haddii uun la maqlo marar iyadoo si uun hadalladu u taagtaagan yihiin soomaalidu waxay tidhaahdaa doqontu meesha lagu xifaaltamayo in lagu kala tegay bay mooddaa waa maslaxaddii iyo qoloba dhinac ka taagan tahay oo ay ka eegayso waxoogaa waa tirsanaynaayoo qolada xukuumadda cabbanaan waa ka tirsannaayoo had iyo jeer waa cabban tahayoo golaha iyagu de wuxuu u samaysan yahay gebigiisuba waa xisaabtan meeshana waxaynu joognaa waa check and balance haddii qandhuufooyinku qolada xukuumadda ku bataan madaxweynuhu isagaa madaxweynihii qarankaa golahana isagaa xukuma golo cabdisaaq khaliif xukumo oo mucaarad oo halka jooga ma ahe waa golo qaran oo madaxweynuhu xukumo taas aad xoogaa idin dabaqdaana waa shaqadoodii goluhu shaqadaasu leeyahay inuu xisaabtamo oo la xisaabtamo xukuumadda la xisaabtamo hay-adaha kowle dowladdana la xisaabtamo buu xaq u leeyahay in iyaguna ay u dhegandhuglaadaan xisaabtankaas oo aanay cidlo ka malaysan uun is odhanin war malaqorada sidaa loo dooni maayo ama sidaa lalama jecla aanay is odhanine ay ku xisaabtamaan oo ogaadaan in golayaasha qaranku isdhammaystirayaan run ahaantii tanina waxay markhaati u tahay inaynu halkan maanta wada joogno oo odayaashii qaranka ugu sarreeyey hadday noqoto madaxweynihii ku-xigeenkiisii hadday noqoto shirgudoonkii labada gole hadday noqoto maxkamaddii xubnihii la soo doortay ee golaha wakiilada wasiiradii madaxweynuhu uu magacaabay dhammaantoodba inay halkan joogaan waxaan cafwan ka cudur daaranayaa golayaashii deegaanka weliba uu maayarkii caasimaddu isna inala fadhiyo runtii waxay muujinaysaa sidaaynu boodhi qura ama jir qura u nahay haddii qolo ay hawsheeda gabtana inta kale aanay u shaqayn karaynin waxaa dardaarankeenu noqonayaa
oo dhinacayagana aanu ka ballan qaadayna haddii ilaahay idmo gale ahaan wixii shaqo ah isku ceebsan mayno eedani keento wixii xadgudubana xaq buu u leeyahay madaxweynuhu hadduu dareemo in golaha ama ha noqoto wax jira ama ismoodsiisba ha noqotee inuu u yeedho golaha oo madaxdiisa u yeedho waa xaq uu leeyahay oo aan cidina ka hortaagnayn maalintii uu u baahdo iyo meeshii uu ugu baahdo haddii ilaahay idmo aad baan ugu mahadnaqayaa mar labaad madaxweynaha marti sharafta ka soo qayb gashayna waan u mahadnaqayaa waxaanan leeyahay dhammaantiin hambaliyo anigu iguma baaqanoo maalintii saddexaad baan golaha oo isu dhal casuumayo waxaan u maleeyaa deyntaa la iguma lahaa marka madaxweynuhuna deyntiisii uu maanta iska bixinayaa aad iyo aad